marka kelmaddeenu waxay ku saabsan tahay xuquuqda dumarka muxuu qur-aanku ka yidhi taasaynu wax yaroo 6 qodob oo mawduuca la xidhiidha ayaynu wax yar ka odhan insha allah iyadoo qur-aanka aynu ku maqlayno suuratu nisaa oo suuratu rijaal aynaan ku maqal suuradda ragga maynu maqal laakiin suuradda dumarka aynu maqlaynaa dumarku sida la ogsoon yahay waxaa walaydii aynu kala farcanayn ugu horreyn ba ilaahay wuxuu ku bilaabay ana الnisaءa shaqaa'iq الrijaal dumarku inay yihiin kuwo ragga laga jeexay wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhumaa rijaala kahiira wanisaءa cirka kamay soo dhicine sida gaalada qaarkood ay yidhaahdaanna shariiraat ma aha xablo xadhka shaydaan ma aha laakiin raggaa ilaahay uu ka jeexo dumarkuna waa raggii ragguna waa dumarkii insaankii iyo basharkii farcamayaa labadaa ka kooban marka cadaaladii qur-aankay noqotay inuu simay xaggii abuurka mar labaad qur-aanku waxa uu u xaqiijiyo u sugay dumarka shayga ugu weyn oo cadaaladda ahaa oo ka maqnaa jaahiliyadii carbeed iyo jaahiliye walba qolo waloon islaamka ku dhaqmin oo cadaalad uma hayaa dumarka been ba ha u sheegaane berigii hore waxaa jiraysay carabta ninka haddii uu dhinto oo habla ka tago ka u xiga ayaa hablahaa guursan jiray xoolahoodana qaadan jiray ama gayaan ha u ahaadeen ama yee u ahaanin wain khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaa meesha haddaanay cadaaladi ku jirin baa ilahay uhi agoonta iska daayay kol haddaan agoontii la guursaday meherkeedii la siinayn un dhaxalkeedii la siinaynin ha laga daaya buu ilahay yihi dulmiga cadaaladdu qur-aanku dumarka siiye waxaa ka mid ah ee jaahiliyada uu ka dhiciyey ninku intuu doonaa buu guursan karayay nin baa soo islaamay oo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo 10 dumara wata oo hareeraha iska dhigay nebigu wuxuu uhi ikhtar minhunna 4 marka la reebo bal 4 ka dooro marka 4taasaa lagu soo reebay waa cadaaladii 4ta laftigoodii baa shardi ilaahay uu ka dhigay haddaan loo cadaalad samayn karaynin in midun lagu egaado fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida nin kastoo ka baqa inuu cadaalad sameeyo 2 iyo wixii ka sii badan xabadkeliyaalu iska ahaanaya middiisuu ku egaanaya qofkuna dee naftiisa been uma sheegee inaad cadaalad samayn karaysiiyo in kale waad isogti ilaahay subxaana wa tacaala been looma sheegi karo marka hadduu qofku cadaaladdiisa ka baqo caadifadiisa iyo waxyaabaha ku xeeran middiisaa keliya uu ku egaanaya 3da siyoodba waa cadaalad samaynta dumarka xuquuqdu qur-aanku siiye waxaa ka mid ah inuu xorriyadu siiyo ciday guursanayaan berigii hore waa odaygaa bixin jiray oo inanta ehelkeedun baa odhan jiray anaa ku siiyey iyaduna way iska afduubnayd lama ogolaa laakiin cidda ay doorato ayaa loo guurinaya hadday inan tahay iyo hadday garoob tahay ama carmal tahayba yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariثuu الnisaءa karhan dumarkii inaad qasab ku dhaxashaan maaha buu ilaahay aayaddu dumaashay kusoo degtay tii kalena waa la mida markaa la bilcamayo la guursanaya oo hadduu nin dhinto ehelkiisun baa odhanaya tan dumaasheeda cid inoogu iban mayso malaha dhaqankii soomaalidana waxbuu ka yaro shabahayay dhaqankaa jaahiliga carabta oo marka ninkaasi uu dhinto gabadhaasi ehelkiisa unbaa guursanayey qasabna way ku ahay haddii qolo kale guursadaanna dagaal baaba dhici jirayba soomaalida waxyaabaha ay ku dagaalami jireen waxaa ka mid ah dumaal bay naga qaadeen dumaal ayay naga qaadeen war dumaashu ikhtiyaarkeeday leedahay buu qur-aanku leeyahy qasabku dhaxalka ka daaya dumarka waa tii inantu nebiga u timida tidhi aabbahay ina adeerkiibuu ii guuriyey isagoon waxbay weydiiyey lakal khiyaar bu khiyaar baad leedahay ikhtiyaar baad leedahay haddaad doonto waad iska diidi karta maya aabbahay waan iska ogolahay laakiin waxaan u sheegayaa bay tihi raggu fariin baan dirayaao inaanay arrinka keligood lahayn waa xorriyadda sinaanshaha ragga dumarku ay kala siman yihiin waxaa ka mid ah amaama alqadaa garsoorka hortiisa
beriga hore haddii ninkiiyo gabadhu isqabtaan waxaa dhacaysay in la yidhaahdo aamus edab yeelo ragga lalama murme wartani wareer badana mid xushoonaysaa ma ahay carabtu saasay odhan jireen waar maxay kugu haysaa waxa iyo waxa naa ka daa warkuba u dhammaan jiray laakiin hadday murmaan ilaahay wuxuu leeyahay labadoodaba hala dhagaysto labada cabasho hala dhagaysto garsoorka labadoodaba ha u tagaan fabcaثuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa iyaduna safiir bay leedahay isaguna safiir buu leeyahy labadaa safiir ama wakiil ayaa midna gabadhu ka socdaa arrimaheedu eegaya midna kan labadoodaasaa u baxaya laakiin sheekadu ninkii uun kuma uruursanay amaama alqadaa garsoorka hortiisa way simayin dhaqankii carbeed wuxuu ahaa ama dhaqan kastoo jaahiliyiba in dhaxalka aan dumarka la siin jirin waxay odhan jireen reerka marka lasoo weeraro cidda garab iyo gaashaan leh ama waran iyo gaashaan sidatee wax difaaci karaysa ayuunbaa dhaxalkana leh marka carruurta yaryar iyo dhaxalka iyo carruurta yar iyo dumarka iyo maatida lama siin jirin dhaxal oo adiga dhegaysanaya yuusiikum allahu fii awlaadi si gaaraa loogu cayimay ilaahay nebigaba kuma hadlaynin calayhi salaatu wasalaam qaybtay dumarku leeyihiin uu cayimayba hooyadii intaasay leedahay walaashii intaasay leedahay inantii la dhalay intaasay leedahay lilrijaali nasiibun mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun walinnisaa'i nasiibun mima taraka alwaalidaani waalaqrabuun u kala qaaday ilahay dhaxalka raggu qaybtiisuu leeyahay wixii aabbiyo hooyo ka dhintaan dumarkuna waxooday leeyihiin intii aabbiyo hooyo ka dhintaan far waaweyn baa loogu qorayaa dadka waanay tahay soomaalideennuna inaanay ku safaadin markay daaro noqoto daaro iyo dollar iyo geela iyo qaar badan baa madaxa warwareejiya oo idhaahdo tani dee qolo kale u dhaxdaye annagaaba ka doonaynaba yarade tolo maxay nagaga warwareegaysa geela iyaga iyo daaraha iyaga reer hebel qaadan maaya kuwa waabaanu ishaynayba ayay kuleeyihin si gaaru ilaahay u cayimaya subxaana wa tacaala raggiina intoodu leeyahy dumarkuna intooday leeyihin nebigaba laguma hadlaynin ilaahay baa sarsaray oo cayimay subxaana wa tacaala weliba sida badan dhaxalka dumarku wuxuu noqdaa ahlulfardigu ayuu u badan yahay raggaa had iyo jeer casabada iyo baaqiga iyo suga ama mararka qaarkood waxwaaya laakiin dumarku dhaxalkooda boqolkiiba 95 waa wax cayiman bay leeyihin oona waagi karin dumarku waxaa dhacaysay in la sagsaago ama aan la siininba meherka intee oo aayadood baa meherka ka warramaysa oynu dhegaysanayna waaatu nisaaa saduqaatihina nexla waa cadiya iyo deeq ilaahay uu siiye u dhiiba buu ilahay leeyay meherkooda waataytum ixdaahuna qindaaran falaa taأkhuduu minhu shaya ata'khuduunahu buhtaana waإثma mubiina wakayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdi miyadaan xishoonayn bu ilahay raggiinani soo idinkan u galmooday gabadhaad cawradeedii aragteed u galmootay waxaad ku xalaashtay miyaad iska qaadanaysaa bu ilahay kuleeyay miyaad xishoonayn si aad u qaadanaysa laga xishoodsiiya raggeedkii rag la odhan jiray innagana dhaqanka soomaaliyed waxa wey gabadha waxaa meherka la siiyaa marka la furayo ama marka uu dhintuun baa la islaantuna maxay lahay talo war waxaa la doonaya in loo qadimo arooska la siiyo wax arooska siiye ma idinku jiraa intuu arooska yahay maya waa naadir wey dumarkiina way la qabsadeen dulmigaasoo hadduu ninku iyagoo iska faraxsan yidhaahda heblaayo dee maanta waan deen baxayaa meherkii baan la diyaarahay waaba yaabaysa waxay talo maxaa lasoo wataa yaa la ifurayaa talo la dulmigii bay la qabsadeen moogta meher la siiyo waxay arkeenu xaaladda la furayo waxaasoo dhan markaa waxay ka mid yihiin xuquuqdii dumarka waa cadaaladii waa xorriyaddii waa sinaanshihii waa meherkii waa dhaxalkii kullu daalika wuxuu ka turjumayaa siduu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala xuquuqda dumarka uu siiyey waxyaabaha sii waaweyneed aynu dhegaysanayna aayaadkan soo socda waxaa ka mid a xurmatu aqaaribihin dumarka islaamku wuxuu xaaraantinimeeyey in la guursado qaraabadooda dhowr iyo 20 dumar ah ama 20 dumar ahoo ooridaada ku xeeran baa guurkooda xaaraan kaaya xurmatan mu'abada weliba xaaraan weligeeda bay u badan yihiin inta muaqadkee wakti kooban waa yarta maantana waxaynu ognahay gaalada meelaha ka qayliyadha dumarka kootaha loo xidho waxay yaqaanaan waxa la yidhaahdo nikaaxul alaqaarib
dumarka had iyo jeer qaraabada in la guursado ee iyada xaaska la qaraabada ama isagaba qaraabo ah hooyadeed buu guursanayaa inanteedii buu guursanaya dee guur baa la yidhaha waa sinowne waxay ku leeyihiin dumarka mid yaan la dhaafinin sagaal buu la saaxiib yahay sagaal ayuu la saaxiib yahay sida orgaca ayuu u waxaynayaa guri ma laha oo carruurteedu cid ay ku abtirsato ma laha oo biil ma laha sagaalkaa uu la saaxiibka iyo gaalku waa u xalaal iyaga aragtidooda mid labaad hadduu guursadana qaylaa dhammaanaysa qaanuunku waa ciqaab buu saaraya marka sidoo kale waxaa jira waxa la yidhaha nikaaxulmaxaarim dadka isxiga iyo xaafado dhan ay degaan oo lagu yaqaano waddamada gaalada maraykanka oo kale waa qaybo dhan baa la yaqaana magaalooyinka nikaaxulmaxaarim dadka isxiga walaashii buu guursanaya eddadii habaryartii inantiisa iyada hooyadeed inanteedii waxaasu iska qabaa sharcigu waxau xaaraan ka dhigay gabadha cidda ehelkeeda ku xeeran inaan la guursan karin waa ka xurrimad bay ka bilaabmaysa waa qaraabo goysnimo waa moral xumo naxariis daray ku tahay oorida lala guursaday maalan inanteedii ama walaasheed ama eddadeed maxaa ka imanaya dee waa inaanay raaxaysan ba karinba dadkii qaraabada ahaabaaba iswada dilayaba ilaaba lababa maxay idhaahdeen laba la wada guursaday galladi kama dhaxayso waa kuwaasoo isku xanaaqayan qaraabadii baa u coloobaysaba u xaaraantinimeeye islaamka waxa waxoo dhanba ka sii weyn oorida qur-aanku wuxuu faray waxaynu ka warramaynaa weliba xaaskii la qabo qura inantii dhalay ee bintada ahayd iyo hooyadii iyo waa arrimo kale iyagu taynu imika dul taaganay waaba xaaskii oo quraba waxaa qur-aanku ka warramay in qalbigeeda la ilaaliyo waa arrin aada isaga yar khaatir dhowr oo wax kastaba hala kala qabee dhar iyo dhuuni iyo galme iyo gasiin iyo guri wax kasta hala isku qabee laakiin in moralka iyo dareenka farxaddiisa la ilaaliyo wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan oo macaan ula dhaqma buu ilahay dumarka wacaashiruuhuna bilmacruuf waa masale caama oo qofkan bani aadamka ah in la ilaaliyo dareenkiisa iyo wixii ka farxinaya iyo rabitaan oo qofkii weheluu dareemo difaac dareemo rajo dareemo wacaashiruuhuna bilmacruuf wacaashirnahum bilmacruuf qur-aanku ma odhanin raggii mucaasharada dumarkii saa ula dhaqmo maaha laakiin waa mid ay dumarku la dheeraad yihiin oo ilaahay ragga u dardaarmay subxaana wa tacaala dumarka waxaa la yidhi un raggu markay arrin keenaan aqbala fasaalixaatu qaanitaatu laakiin wacaashiruuhuna bilmacruuf waa dardaaran gaarahoo ilaahay uu siiye ragga oo la yidhi dumarka si wanaagsan ula dhaqma marka hadduu wax kasta siiyo wax kasta ugu roonaado laakiin moralkeeda iyo dareenkeeda iyo qofkan bani aadamka ah aanu naxariisu lahayn iyaduna waa foolxumo weyn taana waxaa laga qaataa oo nolosha si fiican u turjumay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idan marka halkaa waxaa kusoo ururayanu leenahay xaawalaydeenna iyo dumarkeenna diintiina barta oo gaalka intoo dhegaysataan yuu idinka dhex hadlin waa idin ambanaysaano waa idin jahawareeraysaane suuratu nisaana aada u akriyo tafsiirkeeda barta wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu صوم 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 بشهر رمضان صوم